maanta ay taariikhdu tahay 3 Oktoobar 2021 waxaan meeshan oo ah laanta dusmada ee magaalada Gaalkacyo ku soo dhaweynay walaalaheen martida ah oo dadka kala duwan isugu jira oo laga soo tarxiilay magaalada Laascaano oo xarunta waa gobolka Sool oo runtii aan looga warrami karin cid iyadu indhaheeda ku aragta maahay cid ka maqan oo aad arkaysaan duruufta iyo dayaca iyo mushkiladda dadka ka muuqda ilaahay waxaan subxaanahu wa ta'aala weydiisanaynaa dadkaas inuu intii xooluhu ka maqan yihiin u caawil celiyo intii dib soo gaarayna dibtaas dheef ugu bedelo runtii waxaa ku dhacay arrin qadaf ah xanuun badan oo aan dhaqankeenna Soomaalinimo oo wanaagsan iyo diinteenna wanaagsan aan midna ku habboonayn horeyna aan u dhici jirin waxaan leeyahay waa idinka raali gelinaynaa runtii mana inaan mudnayn inay sidaas wax idinku dhacaan dad Soomaaliyeed oo ehelkood la jooga oo walaalahooda oo xoogsato ah oo ganacsato ah oo culummo iyo hooyooyin isugu jira ahaydeen dad runtii aad iyo aad u fara badan oo ilaa 1,000 qoys ku dhawaad ah oo boqolkiiba 65 ay yihiin maato oo ah hooyo iyo ilmo yar oo aad iyo aad u jilicsan runtii waxyaalaha aad iyo aadka u qiirada badan waxaa ka mid ah hooyo umul ah oo iyadoo suuqa jooganta gaari la soo saaray ilmaheedii ka soo tagtay hooyo gaari ku soo dhex mushay oo aad dareemi ka dhaan xanuunka foosha iyo culayska qaban kara qof dumar ah oo ay xaajadii iyo waqtigii foosha ku jira dayaca ay mudan ka dhana waa garan kartaan runtii waa culays iyo maaragtay dib dadkaas soo food saartay dadkaas aad iyo aad baan u dhex galnay dad aad iyo aad u fara badan bay isugu jiraan dad waxaa ku jira dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ka socda dad waxaa ku jira dowladda Itoobiya walaalaha nahay oo runtii dadkii wadada iska mari jiray oo gobolada Puntland u gudbi jiray oo shaqooyinka iyo xoogsatada iska ahaa baa ku jira oo baabuurta la iska soo saaray dadka furta Soomaaliya ka soo jeeda ku jira waa dad aad iyo aad u tiro badan dadkaas runtii sida odayaashii iga horeeyeen iyo maayirka magaalada Gaalkacyo ay u sheegeen shaqo badan oo baaxad weyn la ka qabanay dowladda Puntland waxay diyaar u tahay dadka walaalaheeda oo halkan ku soo barakacay oo barakacayaasha iyo qaxootiga isugu jira inay marti geliso inay nabad geliso inay wixii dhacay iyo duruufaha soo mareen la qaybsato oo runtii ay ugu bedesho wanaag iyo walaaltinimo waxaan diyaar u nahay ninkii raba inuu Puntland gobolka Mudug iyo magaalada Gaalkacyo ku noolaado aan gacmo furan ku soo dhaweyno ninkii raba in wadankiisa loo celiyana isagoo la tiscimay oo si badqab ah oo nabad ah loo tiscimayna wadankiisii iyo gurigiisii ku laabto oo inta uu ka tagayo hooygiisii iyo gurigiisii ehelkiisii aan ka warqabayno oo meesha uu aadayaba aan hadba kala warqabno dowladda ugu soo horeysa aan ku wareejino ilaa uu ka gaaro meeshii isagu u socday runtii duruufahaasna waxa looga bixi karaa walaaltinimo iyo iskaashi iyo in dadkan waxay u baahan yihiin lala soo gaaro runtii meesha waa meel kulul xilli roobaada lagu jiro marna dabayla marna dhaxan ah lagana yaabo inuu roob da'o dadka inta tirada la egna meel ay galaan ma haystaan waxay huwadaan ma haystaan cuntadii iyo daawadii iyo biyihii kulli annaga la garab taagan sida hadda aad arkayseen baa dadkaas quraacdoodii iyo biyahoodii iyo hawlahoodii aan isugu dubaridnay in allaala iyo intii nagala qayb qaadanayso oo muslim ah oo ehel ah iyo hay'adaha samafalka oo deeqda bixiya runtii naga garab siiya hawlaha noocan ah waxaan baaq ugu diranaa inay dadka soo garab istaagaan nagala shaqeeyaan runtii culays aad iyo aad u fara badan baa halkan ka muuqda inta hadda idiin muuqata in la egna ama kala bar ku dhowna safar bay ku soo jiraan ilaa galabta ilaa caawa way soo gelayaan waa dad sidaasoo kale isugu jira maato iyo dad jilicsan ah oo runtii duruufaha noocaan oo hadda idinku waa u jeedaan oo dadkan qabaan ay qabaan odayaasha dhaqanka reer Koonfur Galbeed ka soo jeeda kuwa gobolkan Mudug inala jooga kuwa bari iyo Nugaal ka yimid runtii si fiican bay noo garab istaageen shir baan halkan ku galnay waxaan hoosta ka wada xariiqnay inta hawsha ka dhamaanaysa in la iskaashado waxa ugu muhiimsanaa shirkaas 3 qodob maayir ku sheegay oo ah dadka ganacsatada ah oo hantidoodii ka soo cayroobay oo waxba faraha ku hayn oo deymuhu ka maqnaayeen oo ayaga deymaha lagu lahaa oo dad wax la lahaa oo dad wax ku lahaa oo dhowr iyo 39 qof meelahaas ilaa 35 qof in odayaasha aan ku wareejino
ay wadiiqadii iyo waddadii loo mari lahaa inay hantidooda helaan aan la baadi goobno dadku dad caqli ah oo culummo ah oo aqoon-yahan ay leeyihiin waxaan isleeyahay waxa meeshaa ka dhacay iyo waxa dadkaa ku dhacay looma dhammayn waxaan aaminsanahay dadkii waxaan sameeyey in loo hoosgeliyey waxaan aaminsanahay dowladda somalilan inay dowlad sharaf la tahay laakiin waxaan lagu dhagray ay tahay wax runtii aan munaasib u haynin iyaduna samayso dadkaanna ay yihiin dad walaalaheeda oo runtii aan geyin waxa ku dhacay xaqiiqatan waxaan leenahay dadkaas hanti baa ka maqan dad baa ka maqan awlaad baa ka maqan dadka dhaqanka ah oo ka soo jeeda gobolka Sool khaasatan degmada Laascaanood culimadeeda iyo cuqaasheeda dadkaas aragtaan runtii xanuun badan baa ka muuqda intaan u jeedno wixii ganacsi meesha ku lahaa iyo wixii dhaqaale ku yaaleen waxaan ka codsanaynaa inaad waxaad u caymisaan wixii idinku soo laabtay ayagu xaqoodii raadinayna xaqoodii la baadi goobtaan wixii raba inay xaq lagu lahaa iska bixiyaanna ciddii wax ku lahayd aad la raadisaan garab istaagtaan idinkaa dadka caqli u ah ehel u ah oday u ah dowladaha maanta ka jira Soomaaliya waxay inta ku soo jireen oo inta ku soo gaareen 30 sano Soomaaliya burburka ahayd waxay ahayd caqliga iyo cuqaasha iyo odayaasha iyo culimada iyo dadka ahlul xal wal aqdiga ah oo inta nala garab taagnaa wanaaga inay dowladaha wixii ka khaldabaa saxaan runtii khalad weyn baa meesha ka dhacay cid la rabo inay saxdana waa dadka ehelka u ah oo isimada iyo culimada iyo dadka aqoon-yahanka ah oo runtii fitnada dadka wada inay gacanta ka qabtaan fitna haday timaadana qofka geystay isaga kaliya ku koobnaan mayso fitna haday timaadana waxay wada camimaysaa mid geystay iyo mid aan geysan iyo mid aan raalli ka ahayn intaba fitnaduna intay hurdo waxa loo baahan yahay hurdada laga kicin cidda fitnada wadana waxa la rabaa in gacmaha laga qabto haday aafad timaadana aafadaas wayna saameynaysaa iyada la rabaa in Ilaahay ka magan galno macaasida iyo dhibaatooyinka dadka ku dhacaya iyo xadgudubka dadka loo geysanayana waxay inaga suulin doonaan nimcooyin badan oo aan haysanno oo Ilaahay nagu galadeeyay nimcooyinka inta haysanaa waxa la rabaa dadka inaan lagu xadgudbin dadka maanta meesha jooga oo la dulmay waa dadka ducadooda mustajaabka tahay oo haday Ilaahay gacmahooda u taagaan aan ducadooda la soo celinayn ayada la rabaa inaan musiibo inaysan inagu dhicin Ilaahay ka hoos galno xilli adag oo runtii dadku ay Ilaahay u baahan yihiin oo ay roob u baahan yihiin oo ay nabad u baahan yihiin oo ay wanaag u baahan yihiin oo ay nolol u baahan yihiin baa ku jirnaa iyada la rabaa wixii la haysto in Ilaahay looga shukriyo wixii aan la haysan waxa la rabaa in Ilaahay la weydiisto arintaas waxaan rajaynayaa in laga jawaabi doono dad caqli u abaajira waxaan rabnaa wixii halkan aan kaga heshiinay odayaasha inaan ku dhaqaaqno dadkan aan tirakoob sax ah gelino ilaa maanta ilaa caawayna aan tirakoobkooda saxan qof walba rabitaankiisa la weydiiyo inuu halkan ku qanacsan yahay inuu ku noolaado oo dibdejin loo sameeyo qofkii barakac ahaan loo dajiyo qofkii refugee ah oo qaxooti ahaan loo dajiyo waxaa jira wasaaradda arrimaha gudaha qaybo u qaabilsan barakacayaasha iyo hay'ado ay baartinar la tahay oo halka ka shaqeeya oo hay'adaha UN-ka ah oo runtii gacan weyn naga siiyay barakacayaasha iyo qaxootigaba ayagii baa runtii arintaas gacanta ku hay wixii dibujin loo sameeyay noocyada kala duwan iyaga rabnaa inay insha Allah taala naga xigsadaan cidii rabto inay gurigeeda ku noqoto inaan cid gaar ah u xil saarno dharka laga bedelo dhar loo gado la hagaajiyo gaadiid kuwan ka duwan la saaro kuwan waxay ahaayeen xaraas ma ahayn gaadiid dad inta baabuur waaweyn dusha laga soo saaray oo haddana waxa weeye sida ariga la isugu karooray oo rag iyo dumar ay isku dhex jiraan oo aad arkid hal gaari dhexdiis inta cad ka dhici karo oo dumar ku jiraan gabdho ku jiraan umulo ku jiraan laga yaabo in la isku xadgudbo gaariga dhexdiis oo haddana aan filayn xataa in dib ka soo dhacday oo gabdho yar yar oo ilaa maanta halkan in markay yimaadeen ilaa hadda ay ilin ka qubanayso oo shoogsan oo aan la garan karin wax ku dhacay waxaan rabnaa sidaas si ka duwan cidii noqonaysa iyadoo nabad qabta wanaagsan oo aan diif ka muuqan oo jiscin wadata inay gurigeedii ku noqoto anagoo arintaasna walaaltinimada iyo wada noolaanshaha iyo waxa la isku leeyahay iyo maaragtay soo dhaweynta dadka ka xigsanayna iyo inaan Ilaahay uga magan galno masiibooyinka dhacaya inuusan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala naga nabadgeliyo baan rabnaa sidaa darteed inaan xil gaar ah iska saarno dadkan musiibada ku dhacdo halkan jooga cidii ganacsi ka maqan yahayna waxaan rabnaa inaan
odayaasha ku darno wadiiqadii iyo meeshay u mar lahaayeen u tilmaamno dibna insha Allah meelay wax kaga maqnaayeen iyo siday u heli karaan ugu fudud aan u celinno dad badan baa noo yimid oo runtii si kala dadkan u soo dhaxgalay oo la wax rabnaa guryahayaga mar hore in orodina la ku celiyo iyagana wax rabnaa insha Allah ta'ala inaan si kala u maamulno hadda tiimkii diiwaangelintu hore bay shaqada ka galeen waa u mahadcelinayaa bahda saxaafadda runtii magaaladii oo anaguna intay noo jirto halkan noogu yimid inay arrimaha nagala qayb qaataan ilaa xalay ilaa maanteena dadaal badan galiyay oo runtii waqti badan soo jeeday aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin waxaan rajaynayaa shaqada intay socoto inaad na garab istaagi doontaan waa wax naga badan oo runtii aan rabno inaad garbaha naga qabataan wax kastoo aan qabanayna runtii idinka garba noogu ahaa diyaarad ma jirto garba la'aan duuli karta idinka waxaan rajaynaynaa culayskaas qayb nagala noqotaan waxaan rabnaa dadka in loo duceeyo in Ilaahay loo caawil celiyo iyagoo nabad qaba ehelkoodii iyo waxa kala dadka kala maqan waxa jira dad kala maqan oo ehelkoodii ay meesha jiraan qaybna ay halkan joogaan qaybna ay firxadeen oo ay meel jiraan ilaa hadda aan garan karin jid rafaad ah oo aan biyo lahayn oo aan baad lahayn dadkan waa la soo marsiiyay tacadiyada ugu waaweyn dadkan ku dhacay bayna runtii kamid ahayd odayaal idinkuna aad iyo aad baa mahadsantihiin waa idinka mahadcelinaa taageeradiina madaxweynaha dawladda Puntland iyo runtii mas'uuliyiinta Puntland iyo wasaaradaha kala duwan iyo wasiiradu runtii waxa idin la garab taagay yihiin soo dhaweyn gacan tooliyo waxay runtii ka xun yihiin waxa dadkan ku dhacay oo aad iyo aad u xanuun badan annagana waxaan wakiil uga nahay inaan idin dhaahino idin garab istaagno intaad runtii ka soo kabanaysa